أحمد رشيد أنا من نيروبي أنكون نولا أحمد رشيد في بدل كراني مريكنا جوجاي ما أنت أحمد رشيد عبسي وسوق رئيسي أنا أحمد رشيد دماشي وأوي عن توانا إكسبت جري وحي عن أنت داست وأنا ذكرت وأنا يا قف الدوق عايو كصعب بيبي I love you so much أنا أديك عرضتي دي عند على سد هذا ويرسون جعلها كوج على دقيقة يصير مغلس النعيمة أرنتنا هذا وين لما تي بقردي وقاسي وسوي ماضي نمعنا والله أنا أنتي أو أرنتنا وين لما ما شاء الله نمع أدينا إلهي هرتين قارت ذا كادو أدو سيك هاي مركان كأرني أد بنك عجنا مرة ثانية معي نمع والله الله هبي لايف كلمة يقول قشبي وكاشكي ما يجيم ديلي هي حيدا ما حيدا ذي شيء يقول سعد والله مقلين ما أدينا قارت لا كادو بنك كده أدو سيك عادها هو يرى المحل وأوجي يدعي قيصر بليس وكبريا أحمد رشيد أن سوق بناينا هني شروح يرهص مية هذه ترتاح مرشيد أن سوق بناينا أحمد رشيد ما سلطان تيم كان أحمد رشيد أحمد رشيد كسلطان كتيم كاسوه ورأنا قصل حارب أنا ورا إلك عساوة جعيل كيسي الدويس ورئيس وريان بايش أنصارنا يا وحس قرا حد الضنبوة يا أحمد رشيد ما كان سوق تكتب صاحبتي يا تادوي أحمد رشيد ما يسوعلي هني هذه فيري هني مركي هني ولا سنة سمح قطورتي أحمد ومصيرة بيب مصيرية وقتها سيدا هني ولا شيء واي ونو فرحان قضح ما نوجد الله داري مسبح فرحان قضح أحمد رشيد أصلا صار يا أحمد رشيد وما سنتين السلام عليكم أبو أحمد رشيد أبو السلام أحمد رشيد لايف كي يكون ساقب بصدا إفردي معاكو كود عادي وساقب صدا أنا نيروبي أنا دان اسمهم وينه نيروبي لا هذا جاء أوريد بلانا سوسة أحمد رشيد أجوها والله وقت يرين لجوا راح الله ما اللي فصح تالي كسوع هذا وحر انت هذا تالي نمع علي أحمد رشيد وسوق انت قناه وملا يعني أحمد رشيد وسوسه كورني سي جونينا كاي شيء كي وملا نمع له هذا ترتيب ديلش اوكي انت سرينا كوغسي كسوع تالي وصعنا هذا الكيدنا هذه النعمة كسعد اللوذين هذه نحضرين ما دقايا هذه نعمة وقورنا نحضرنك هذه ثلاثة قوسوا للنعمة سلطان أخلاق دور هدي مرعد ونحضه عدري ونحضي هدي وحكسة يسور دحان dhaqanka Soomaaliyeed ee banaanka la soo istaagta maaha هذه inay ninkeeda kala tashato ninkeeda cidiis u canaanto waaye هذه inay banaanka la soo istaagta cidi qabtay caydeeda way ku qaldantay هذه wax kasto la xataa xaar dan marina هذه banaanka hataa dan xaar madax ooga shubno dhaqanka Soomaaliyeed naag la qabo inay banaanka la soo istaagta cidi qabtay waa qalad هذه waxa dhaqanka inay ninkeeda u sheegto ninkeeda cidiis u qabsado waaye هذه صح intaas ayaan leeyahay nicmo hadii aabaheedii hooyadeedii suldaankeeda boqorkeeda banaanka anaka aan xaar ku marin iyadoo aan qabnaa dadka soo caytamaya dad la qabo ma aha ay cid qabtay caynahayaan laakiin iyadoo waa la qabaa naag la qabo inay tatal nicmo ergaasaan ku leeyahay banaanka la soo istaagay waliba ninka banaanka la soo istaagay aan banaanka u leeyahay nicmo أرجع telefoonka aad ku jirto waxaan sheegay inuu soo dan kama lahayn cid rayidka markay kula hadlayaan soo inuu dan kamilid ma Axmad Rashid inaad reedigiso hadalka aniga hataa ma fahmin hadalka ugu dambeeyo maxaa tiri hadalka xalaashan ha inta ugu dambeeysan baan fahmo inta hore waan fahmay naag la qabo cid qabtay haday cayaar laga deeyay waan fahmay intaas ayaan ku dhahay wax kale oo kugu cili ma laha اوكي ما نمع انا الهي كسكورت انا كمسؤوله نمعنا وحاسكيga adigana waa dumaashida qaladka ay soo bisan horta aniga oo walaalka waan suubiyay
hadalkan ku dhahay dhegeyso waxa weeye qofka bini aadamkana dee horta maqal dambe waa ilaahay qaladkeedina arrintii hadda waan anigu hadda waad waanisay oo waanadii ayaad maartay nimco awaaninaysaa oo future-ka qalad dambena insha Allah u malayn maayo inaad dumaashidaas suubinayso haddana arrintan way soo dhamaatay adigana aad iyo aad baan kugu salaamay warkaysi ma Nairobi joogtaa Axmed Rashiidow Nairobi jooga war kala kuma hayo waxaan ku hayaa nicmo aw نعم قول نروح ضغط waxaan inta badan aad banaanka la taaganto way dhib haysa istaaji markan adinkana aflagaadada iga daay hooyaday qabriga ku jirta hooyaday la caynin because ani hooyaday ma la caay wax ma la ii reeban sumoog aamusnaantu waa shay dahabe waa ogahay laakiin haddana maalin kasta caay gabdha aniga ficilgaas hooyaday u cayn karaa every day hooyada qabriga lagu wasaa hooyada saan waay every day intay ii soo qabsadaan ميكروفون ايوه وان بحي انا شرا كجرا مع سلامه ايوه سو دو نادر بان كو سلامنا تري adigana hatan ha ugu dambaysa qabiil aad ku xadgudbayso qofka haduu ku caayo oo caay adiga aad caaydu ku caayay aad raali keen iskaga tag adiga caan baa tahay qofka lama yaqaano faraha ka qaado balaa gali qofka iska dhaqaaq ma fahanti haddii aad qofku ku dhaleelaysan wala gar laakiin qabiil dambe ha u gafin qabiilka gaar ahaan waliba hadda fiiri dhowrka qabiil hadda aad u gabtay waa tolkaada weeye wax ka dheer mala laakiin hodhoobti dad kale laga yaabaa oo Soomaali kaleeta oo maartay oo qabiil kaleeta oo si khaldan ku fahmay ayaa laga yaabaa inaad isku gudubtaan arrintan intan ay ka weynaato tolkaada ku dhax jir hana qabiil dambana caayin gabar soo la badhi baa tahay xaaskayga baa tahay wax walba aad suubiso dhigayso waxaan ku dhahay khaladka aad suubiso aniga ayuu soo gaarayaa maqlaysaa private waan ku waaniyay publicna waa ku waaninaya tolkaada oo tolkeen hadda meesha ku jira 2.8k baa ku daawanaya ayaan hadda leeyahay dhageyso qaladka aad geysato aniga qofka la eedeynayo oo dambigaas lagu ogaay waa aniga laakiin mar walba weyn oo ilmaadeerta ay qaladka ii geysteen ayaa loo eedeynaa in adeer dadka ma aqaano aniga ma aqaano dadka sheegayso hebel baa caayida guraysa ani ma aqaano ma faantay dadkan adiladu qofka adiga haduu ku caayo black iska saar adiga stage u soo koray caan baad u noqotay lagu caayo 24 hours anaga la caaya kuwin caaya anaga la qadeynaa laakiin adiga dumar baa tahay waa fahmi karaa dumarkana marmar waxa jirto marxalad ay bedelan tahay ma faantay waan fahmi karaa taas hadda koorna waa taas waan ka wada hadalnay laakiin adiga hadii lagu caayo qofka black iska saar ka soco hebel iyo caay iyo kan iyo ma aqaan ani arrintaas waxa ka heshay garan maayo waan ku canaanaya dad korto waan ku canaanaya qof haduu ku caayo ka soco baby I love you so much aniga adiga carruurtayda aan dhalaan saddexda wiil saan u jeclahan ku jeclay dhageysan maqlaysaa Naciima saddexda wiil saddexda adiga ku jeclaa dhageyso mar walbana waxaan diyaar waa naftayda inaan ku huro dhageysiya seefta adiga lagu wadana aniga inaan isku dhigaan diyaar waa dhageyso adigana waxaan ka rabaa arrintan qabiil dambe ha ku gudbin dhageyso ma ku xad gudbin mar dambe qabiil ha caayin dadka maanta soo qoray Axmed Rashiid cabsi waaye Axmed Rashiid ani ma Nairobi aan ku noolahay Axmed Rashiid muxuu iga bedeli karaa ani Mareykan aan joogay maanta Axmed Rashiid cabsi waaye soo qoraysay أنا أحمد رشيد دماشقي وأبوي عنانتي وأنا أكسبت قري وحوي وعنانتي داسد حتى قفك وصوقر حتى مرة أنا كنا دماشقي ما نقدر حسن فيري قفك هذا وحي قرار ما بعرف عليه هذه وحي قرار حتى مرة عوسة ما تبرع عليه GPS عمل silkaasoo in adeer waan ku salaamayaa indhaha ku dhacdhacaya iyada gabadha ma araale ahaw nicima in adeer raale ahaw dadkan wax soo qorqorayana waa dadka isku diraya reerka marka ayayna kugu dirin tolka in adeer macaan waxa soo qoraya dhageyso dadka waxa soo qoraya dhamaan midka fiiriya midka waxa xun soo qoraya iyo midka waxa soo qoraya labaduba way ku jecel yihiin waxaan ku dhahay dhageyso because qofka midka waxa xun qorayo ilaahay asaa u abuuray laakiin uu ku jecel yahay uu ku soo raadiyay live-kaadu soo galay waxaan ku dhahay dhageyso ma fahanti laakiin asal ilaahay suu abuuray baa saa wax laga bedeli kara ma laha ma fahanti marka u maleeyeen qof walba wuxuu soo qorayo inuu adigu necab yahay mise isku keendiraya ma aha way ku jecel yihiin dadka Soomaalida way ku jecel yihiin aniga waan ku jeclahay I love you ninkaadaan ahay waa ku dhimanayaa dadka meesha ku jiraan teamkaasoo dhamaan way ku jecel yihiin ani waa ka dhacayaa baby
maxaa kaleeta